السلام عليكم أسعدكم كان جنرال كسر وهذا مركلي مقالكلي ولكن عاس فوركيس عاو حيدي وضع مقالكلي عجيبة وبيجلي ريفيو هدي أنا صوت داوان مقالكي كوري حوجه وحلقة بقى إنه كونفيس أنا قتيل فضلا waxaan ku dhigi doonaa halkan ayaan ku dhigi doonaa si fiican u soo daawo muuqaalkaas kadib waa nala jaan qaadi doontaa insha Allah wiigi hore waxaan soo sheegnay iyo wiigan waxaan sheegi rabno way isku ka xirbi doonaan insha Allah muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa review weekly aan ku sameyn doono wiigan hadduu ilaahay ka raali noqdo insha Allah muuqaalkan isku day inaad sii share gareysaan oo saaxiibadiin u sii share gareysaan insha Allah waxaan ku soconaa wadadii aynu ku gaar lahayn 1k subscribers aynu idin aragno waan idin hagar baxnay ina keena oo ina geeya jaaska insha Allah weegi hore haddii aan dib u laabano ama dib u milicsano jaatiskeena sida uu noo ahaa suuqan cashirkan haddii aad daawatay aan soo dhigno meesha qaybtiisa shan daqiiqo miya 5 daqiiqo ugu horeyso 5 daqiiqo waxaan ku sheegnay wax walba oo dhacayin meeshaan aan ku sheegnay soo maahan okay no أنا 10 كاس ما أركاية ما أركاية في صومال مياه محاول أركوية وبسوشيال كذي ماشي بس هادرو يسوق لسكال أمين تليجرام كام أنا ما أركي أوكي دب ملان هاي هادو مركا ويجي هوري وحان شيغني إن ميلها سوق اللي سوق علنا absolutely it was nice right إن ميلها سوق اللي سوق علنا كان لك سمي اسمها rejection اللي سوق سمينا rejection كاس مركا اللي سوق سمينا سوق سيل ماشان اللي سوق فايدي سنة لكن سوق محو سمي هوسن محو كتغي ميل ديسكون اريا او كتغي inducement candle ama doji candle iska sida oo sameysma amal candle iska la wada dhinac ka sameysma amal ay noqday waa simple waxa waa trick way okay aan ka soo tagno marka imaana jaatiskeena okay sida caadada oo ahaydba weekly ayaan eegaynaa insha Allah okay shaashada loo wada jeedaa soo ma horta suuqa sida uu ogsoonahay maalinkan uu sell side kan soo qaaday sell side ka maalintuu qaaday sell side kaas boodiga hadii laga soo dhex baxan dhanay waa real breakout sell side kaas maadaama la qaaday suuqa waxa ku xisaabtamaysaa markasta oo la keeno point of interest ugu warnuudkiina qaata point of interest marka suuqa uu joogo ama uu imaado halkan maxaa kugu jira inversion fair value gap kugu jiro inversion fair value gap maxaa waa POI ama point of interest suuqu markii uu sell side uu soo qaaday aragtid boodiga uu ka soo dhex baxsado waxaa la keeni doonaa meel point of interest oo ku beegan discount area ama equilibrium labadaas ay noqon kartaa okay sidee equilibrium noqonaysaa lugtan halkan ka soo baxday ilaa ay halkaas tagtay equilibrium keeda way equilibrium keeda ayaa la keenay equilibrium keeda wajida amis kale tan soo jabsatay meeshan dhankan bidixda fiiri dhankan soo jabsatay discount keeda lagu keenaa labadaas ay mid noqonaysaa bis labadaas ay mid noqonaysaa wajida it's in a discount soo marka anaga hadda waxaan rabnaa maadaama suuqu uu inoo keenay meel point of interest loo keenay suuquna saasaad uu soo qaaday lugtaan soo jabsatay ayaa waxaan ka raadsanaynaa premium keedii ilaa inta suuqa waxa uu udeysaa dhankaayo buys raadinaysaa okay suuqu marka ma iswaalin wuxuu tagay fair value gapkaas mujeeda haddana waxaa raadsanaysaa kaliya fair value gapka ku beegan premiumka fair value gapka ku beegan premiumka kaasaa mar walbo favorite ah okay suuqii markuu tagay kadib wuxuu sameeyay again fiiri halkan maxaa meesha maxaa ka dhaca waa
suuq markuu candlekan sameeyay candlekan weegaas la sameeyay aragtid suuqa still wuxuu socdaa buy waayo halkan waa reversal kaaga dhacay reversal maadaama uu kaaga dhacay swing lower meeshan kaaga sameysmay meeshan waa meel weekly OB ah candlekan ku sameysmay weegaas oo dhan adi fursad buy aad raadsanaysaa selka waa kusoo trade gareyn kartaa laakiin majorka waxa waaye fursad buy ilaa intuu buygan sii socon karaa marka ilaa iyo point of interest inversion fair value gap meeshan ku jiro inversion fair value gapkan suuqii baa laga soo celiyay again haddana OB-gan ayaa la keenay OB-gana buyerskii weegi imaadeen kadib waa la soo dardaray markii boodiga laga soo dhex baxsaday fiiri boodigii waa laga soo dhex baxay inteen la qaaday sell side la qaaday maadaama sell side la qaaday sell side maadaama la qaaday sidoo kale intoodna boodiga laga soo baxsaday meeshan marka meel point of interest ma tahay yep ha waa meel point of interest oo lagu magacaabo waxa loo yaqaano inversion fair value gap iyo OB wada socdaan inversion fair value gap iyo OB wada socdaan maadaama meeshan inversion fair value gap ay tahay inta ani waxaan soo qaadanayaa discount area-deeda A to B dan bixayso waa la premium gareynaya iyada badanaa marka waxay kasoo laabataan dhanay ama equilibrium ay kasoo laabanaysaa ama premiumkay kasoo laabanaysaa hadda intee la geeyey marka suuqan fair weegan waxaa la geeyey mean threshold of this OB candlekan weegan wuxuu noqday induced candle still there is a gap between here so marka maxaa u rabnaa marka waa ujeednaa inversiona ku jiro at least gapkan in la dhamaystiro weegan haddana kor loo baxo la soo celiyo candlekii markii la soo celiyo kadib ayuu candle kalo seela noo qaabeysmi doonaa candlekaasna wuxuu samaysan doonaa swing high haddii uu samaystane kadib suuqii ilaa ay weeg dambe sell side-kana target noo noqonay laakiin maxaa lagu sameynaa marka ama candlekan ujeedkiisa guud sidoo noqon doonaa markuu candleku sidan markuu u furmo waxaa la rabaa inuu meeshan uu ka samaysto ilaa laga geynayo inversionkaas weeg dheer weegaas waa in la soo celiyaa ujeedaa highgan waa in la qaadaa highskaas waa in la qaadaa kuwaana targeta ujeedaa kuwan baahe targeta mar walba caqligaaga xisaabi mar walba fiiri meeshan previous day macnaha lowgan ma la qaadin ujeedaa intee targeta marka kuwaana targeta caqligaaga ku xisaabi because intee loo socdaa meeshan mararka qaar lowga la qaadaa waxaa waa suuq markuu sell u socdo mana dhacdo way yar tahay suuq marka point of interest markuu kasoo tago oo sell side uu ku qaado badanaaba waxaa la qaadaa high-ska fiiri high si loo qaadaa mujeeda weegan bisaan la qaadin weegan waxaa sameysmay induced candle it means meeshan waxaa jiraan meeshan haddii aan dul istaagno meeshan waxaa isku haysto buyers iyo sellers isku haystaan buyerskana way joogaan sellerskana awood way ku leeyihiin maadaama equilibrium ay tahay mujeeda waxa keenna waxaa waaye equilibrium marka weegana waxay dhici kartaa in premiumka si toosa loo geeyo kadibna suuqu uu samaysto week dheer because weegaasna wuxuu ku turjumayaa in sellersku ay soo celiyaan way fahanteen afra sellersku inay soo celiyaan marka insha Allah candle sell meeshan ka rajaynayna ama candle green laakiin rejection wata candle green laakiin rejection wata maadaama mar walba hortaro buyerska ay meeshan ku awood badnaayeen fiiri mar walba buyerska waxay qaadayeen high marka anaga waxaa target noo pointiyadaas ayaa target inoo ama buy side-daas ayaa target inoo okay tan marka dailygeeda haddii aan sii tagno marka fiiri dailyga marka still waa bullish no difference mujeedo wax difference ma jiraan mujeeda markastoo fair value gap laga sameysmo hadda kan waxaa waaye discount uu joogaa mujeeda discount calaamadana noo kala qaybiso hadda equilibriumkii suuqa waa kana equilibrium marka brittle candle-ka furmaayo maadaama kan candle green uu noqdo oo meeshan xoogo consolidation uu ka dhaco
consolidation ka markuu dhaca kadibna suuqa manipulation la geeyo kadibna distribution la soo sameeyo because lugtii manipulation ka sameynaysaa dhiman wada fiiri suuqa intaan waa iska marxaladooyin consolidation iskaga jira way fahanteena filaa marka manipulation ka dhiman manipulation kana waxa waaye in la geeyo OB gan ama breaker blockadan in la geeyo kadibna suuqa la soo geliyo because meeshan waa meel discount area premium area halkan sidoo kale intood fair value gap ku jiro meelahan oo kale intood in suuqa la geeyo kadibna la soo trade geliyo markastana ogaado ku xisaabtama swing low of the week ma high of the week mar walbo ayaa high probability high of the week maalinta lagu sameeyo maalinta ku xigta meesha la aado abti aad raac dadkaas meeshay aadayaan raac okay taawata waxaan tegaynaa marka DXY idane maadaama tan aan xogo yar baygan ka raadinayno ilaa iyo point of interest yan iyadana intee loo wadaa laakiin majorkeena guud waxa waaye sell ilaa iyo premium kale keenay okay tan aan soo bilaawno iyadana weekly analyze suuqan saa u jeedid iyadana fiiri wax yar aan ku tusaa suuqan maalinkan fiiri maalinkii lagu qaaday buy side kaas maalintii la qaaday kadib maxaa dhaca fiiri buy side liquidity gaas la qaaday buy side liquidity gaas maalintii la qaaday kadib waxaan sugaynaa lugtan jibisay ayaan equilibrium and premium soo saaranaynaa equilibrium soo saaranaynaa okay waxaan sugaynaa marka suuqa ilaa iyo laga keeno meel point of interest fiiri suuqa markii wuxuu imaaday point of interest weegas wuxuu sameeyey swing low maadaama uu samaystay candleskan xigaan still waa buy how many buyers meeshan ku jiraan how many sellers meeshan ku jiraan waa inaa ogaataa okay suuqa markii uu inta imaaday anaga waxaan sugaynaa marka meel key level suuqan ee laga soo celin karo sida inversion fair value gap kaas ama fair value gap kan soo jeedno reaction ka dhacay kadib waa la jiiray maadaama la jiiray meeshaas waxaan sugaynaa marka hadda fiiri still another buy side kala la qaada fiiri buy side kan kale markii la qaaday isla markii maxaa abuurma mar walbo buy side la qaado waxaa abuurma fair value gap lugtan wax soo jabsata marka eeg lugtan wax soo jabsatay iyadana discount area u sameey premiumkeedii maxaa ka sameysmo mar walbo premium uu ka sameysmo fair value gap haddii aragtid premium ka sameysmay fair value gap la mid ay noqonaysaa in buy side ka kore la qaado kadibna suuqu uu soo jabsado meeshaas soo u imaado discount area imma in asagii la cuno hadda fiiri sidaa u jeedna halkan fair value gapkii ku jiray waxaa laga noqday OB gana laga noqday OB gan weekliga ayaa laga noqday OB gas weekliga ayaa laga noqday maadaama OB weekliga laga noqday maxaan sugaynaa marka waa in kan loo qaadaa marka buy side ka sorry waa in kan loo qaadaa sell side scan waa in loo qaadaa sell side kaas waa in loo qaadaa mar walba fiiri marka abti meeshan ha isku qaldin meeshan hayga markii la qaaday kadib fiiri ala qaadaa lugana la qaaday again OB gana imaaday lugana la qaaday kana asagan dhiman kana marka target noo ah kana target inoo ah marka candleka sameysmayo in which way uu sameysma karaa candlekan maadaama meeshaan oo kalentood hadda meeshaan oo kalentood iyadana waxaa kugu jiro wax OB kugu jiro codkii ma la maqlaa ustaad okay meeshaan waxaa noogu jiro OB noogu jiro maadaama meeshaan OB noogu jiro candleka weega sidan camal ayuu u sameysmi doonaa
sidaan camal ayuu u samaysmi doona waa inuu lowgan uu qaadaa waa inuu lowgan uu qaadaa ilaa meeshaan somehow some buyers jiraan laakiin candlekan iyadana meeshaan laga soo celiyaa meeshaan waa in laga soo celiyaa oo rejection yar kor rejectionkeeda inuu yaraado hoos rejectionkeeda uu bataa la rabaa si sell sideskan loo qaado sell sidekan makan loo qaado soo suuqani waxaa la keeni doonaa meel discount area ama equilibrium sida fair value gapkan weli ma laga trade galin fair value gapkan asagana waa drawing liquidity loo soo socdo okay intaas inaan isla fahnaan rajeynaynaa marka aan tagno marka dailyga isagana maxaa ka dhacaya saa u jeedno dailyga meeshaan waxay noo ahayd weekly OBA noo ahayd sidoo kalentood meeshaan wuxuu ka samaystay haddaa aragtid fiiri real breakout markastoo aan aragnane maxaa dhacaya marka A to B daada soo qaado A to B daada dailygaa soo qaado halkaas keenso okay intee la imaanaa marka fair value gapkana la imaanaa fiiri fair value gapkan idins waxaa ku cad marka in la qaadayo sell sidekan inuu target loo yahay hadhacay sell sidekan inuu target inuu yahay waayo fiiri suuqa structurekiisii already wuu soo fashilmo suuqu markasta wuxuu sameynaya high laakiin hadda wuu awoodaya PMS meeshaan ka dhacay OB-gana la ixtiraamay OB-gan maadaama la ixtiraamay again suuqu dhac kadibne waana target because intaan uu hoostan u soo socdo euro waxay isku diyaarinaysaa inay qaado kuwii kore dan premiumkii ay tagto dan talaado ama arbaco intii qurux badan uu ka dhaco meesha war intaas ma la fahmay okay commentiyada soo qoraysan waan ku laabanayna insha Allah fiirinayna